shacabka Soomaaliyeed ayaa si weyn ugu naxay una taabatay Allah u naxariistay geeridii wariye Cawil Daahir Salaad oo kamid ahaa ku dhawaad 3 qofood oo ku dhintay qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho 22kii bishii 12aad 2018 hadaba kulan baroordiiqa isla markaana loogu duceynayay wariye Cawil Daahir Salaad ayaa waxa soo qaban qaabiyay jaariyada magaalada Birmingham iyo ururka Inspire Community ee magaalada Birmingham aqoon-yahano waxgarad dhalinyaro culamaa u diin iyo haween ayaa halkaasi waxa ka soo jeediyeen hadallo wax ku ool ah iyo ducooyin hadaladii halkaasi ay ka soo jeediyeen waxa kamid ah marbaray oo kamid ah jaariyada magaalada Birmingham Inspire Community oo isugu ahaa barnaamijkan ka soo qaban qaabiyay ilaahay ajri xasanaad ka siiyay rabaan u yeero oo ballo kala duwan ka soo jeediyo insha Allah runtii aad wuxuu nahay waxa ka dhacay xamar runtii ma dhaheeno in Cawil Salaad kaliya maahan dad badan ku dhintay meeshaas laakiin asaga waxa soo horay inuu ahaa runtii wax ninka miidiyaha ugu aktiivsan oo ahaa ee jooga xamar waxaan fariin u diraa runtii dadka ku hoolan dowladda Soomaaliya fariin u diraa waxaan codsi aan dheer u diraa qarxan ma joogsanayo ilaa iyo shaqo badan laga qabto laakiin maalin kasta ma soo istaagno heblaad inta aan u xariistin aan dhahnay ay ku dhawaaqmaya ma qaano waxaan ka codsanaa runtii dowladda Soomaaliya ka codsanaa inay ilgaar ku fiiriso waxaan dhacayo waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala huna xariisto walaalkeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannatu firdaws hageeyo qabriga ha waasiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaadii iyo cidii ka tagayna ha u xifdiyo ummadana ha ugu bedelo qof sidaas oo kale hawshii wanaagsaneyd ee uu hayay ummadda Ilaahay rabo soo saar ragga waxa ku jiray hogaanka uu hayay iskeelida ummadda hogaanka uu hayay in ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ay isku fahmaan oo markay goobaha wada tashiga iyo wada hadalka iyo ku dhamaysiga qaab hadala wixii uu jeedaleeyahay sida fiican hogaamiya waxaan halkan taasi uga dirayaa dhammaan eheladii iyo dhammaan qaraabadii iyo shacabka Soomaaliyeed dadkii ku geeriyooday maalin walba ku geeriyooda Soomaaliya hadda la sheegayo baladweyne qarax ka dhacay la leeyahay maalin walba qarax baa dhacay la leeyahay yaa noo tira kooba ma la qoraa ma la diiwaan geliyaa ummadu 50 sano 100 sano ayay xustaa maalin hebla halkaas ay ka dhacday anigoo uga faa'iideysanaya munaasabada ducada ah waxaan isweydiiyaa yaa xukuma maxkamadda xukunka saarta dadka Soomaaliya jooga maxamed jooga ee baladweynaha zoonahaas dil bay ku wada xukuman yihiin maxkamadda saarta garyaqaanada difaaca waa kuwa dadka dilka ku xukumay yaa eedeeya dambiga loo haystaa muxuu yahay waa su'aalo aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed inay isweydiisa ah anoo ku hadlayo magaca Soomaalinimada waxaan leeyahay walaalkay Allah u naxariisto waa nin loo baahnaa wariican oo loo baahnaa ayuu ahaa xagga meediyaha nasiib daro waxaan nagu habsatay in la dilo mar walba lala beegsado qofkii loo maleeyo in uu yahay Soomaalinimada ay uga jirta dhiigga waxa ayaan daro ah oo aan la isweydiin haddii aynu nahay Soomaali haddii aynu nahay dadka degan magaalada la yiraahdo Muqdisho war yaana laayo war dadkeena yaa dilo war ma isweydiina wali yaana dilo yaana xukumay yaana laynaayo dadkan maalin walba baaba'ay cideed dishay waxaan u maleynaa dadka dan laga malaha waayo haddii dadka dan laga leeyahay dadka lama laayeen halkaas waxa ka cad inay dadku ayaga dhabooda fooraraan haddii aynu nahay dadka degan magaalada Muqdisho waa foorartiin aad ayaad u foorartiin waxaan rabaa 3 qodob aan ku soo qaatay qormadeyda oo lagu xasuusan doono Cawil inaan meeshan uga tago 3 koowaad waxa waaye waxaa lagu xasuusan doonaa geesinimadii iyo xamaasadii oo uga shaqeyn jiray warbaahinta labadaas arrimood sifo oo xamaasad ayuu u hayay barnaamijkiisa dood wadaag sidoo kale geesi ayuu ahaa oo qatarta ku dhiiranayay inuu wajaho arrinta labaad oo lagu xasuusan doono Cawil waxay noqonayaan dhalinyaradii uu tababaray dhalinyaro badan ayuu tababaray oo maanta qaarkood farsamo yaqaan yihiin
idaacadda ka shaqeeyaan qaarkoodna ay yihiin wariyaal ayagana afkooda ka sheegay oo waxay yidhaahdeen wuxuu noo ahaa macallin waxaa kaloo lagu xasuusan doonaa oo warkeeda isoo gaaray inuu arrimaha samafalka ku howlanaa waxaa aan maqlay in gabar hayo cudurka kansarka oo da-deeda aada u yaryahay uu maalinta qaraxa ku dhacayo u socday si gabadhaas loo caawini lahaa lacag loogu abuuri lahaa ugu dambeyn barnaamijkiisa doodwadaag wuxuu ku soo gabagabayn jiray eraygaas ayaan rabaa inaan halkan ka sheego oo wuxuu ku soo gabagabayn jiray nabadgelyo marka halkan waxaa anigana ka leeyahay nabadgelyo weriye cawil asalaamu calaykum kolley wixii aan dhihi lahayn horteen waa la yidhi war badan waxa ma taray Soomaaliya haddaan nahay dadka Muqdisho ka soo jeeda maalinba waxaan dhahnaa un Allah u naxariisto waxaas horaa loo yidhi laakiin hadda waxaan u tacsiyeynaynaa walaalkeen dad badan baa la dhintay intii la dhimatay iyo intii laba qarax bay ahaayeen Allah u wada naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun asaga iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii uu ka tagay iyo university laftigeeda wuxuu ka mid yahay dadka university ay laftooda uga tacsiyeynaynaa insha Allah tacaala annaguna isku tacsiyeynaynaa haddaan nahay jaaliyadda Birmingham Allah u naxariisto walaalkeen inna lillahi wa inna raaji'uun waa salaamantihiin dhammaan akhyaarta haweenka iyo bulshada oo ka soo qayb gashay ama community-ga oo ka soo qayb galay reer Birmingham ka soo qayb galay barnaamijka waa ku mahadsantihiin waxaan gudbinaynaa hadduu eebidmo muxuu ahay tacsi oo muxuu ahay aada iyo aad aan ugu tirayeysanahay oo ku saabsan cawil salaad Allah u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun annaga marka inta noo hartay wax badan laga soo hadlay inta noo hartay waxa weeye oo duceynaynaa hadduu eebidmo in qabrigiisa ilaahay ku qaboojiyo kitaabkiisina midinta Allah ka siiyo waxaan naga inteenaan agu maraynaa maaragtay muxuu ahay faatixadaan maraynaa si ilaahay qabrigiisa ugu qaboojiyo waan ugu wada duceynaynaa waqtigana waan ugu gaabay hadduu eebidmo waxaan kusoo gabagabaynaa qabrigiisa waasaca Allah oo kitaabkiisa midinta Allah ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsi tiiraayada u dirayaa sida akhyaartii faraha badneed iga horreysay walaalkeen Allah u naxariisto wariyaheenii qaaliga ahaa cawil daahir salaad runtii anigu waxaan ku jiray sidii professor Rumi iga horreeyey aan dhowr jeer ka wada qayb galnay doodiisii barnaamijkan ugu soo korreeyey barnaamijka qiimaha badnaa ee uu daadihin jiray oo ka bixi jiray telefishinka universal ee la oran jiray dood wadaagna runtii wuxuu ahaa barnaamij soo baxay xilli loo baahnaa waayo dadku waayadii lasoo dhaafay dadku waxay ku garrami jireen wuxuu ahaa awoodda iyo qoriga laakiin wuxuu bilaabay in lagu garramo maskaxda iyo carabka iyadoo la isdirin wax la istusaaleeyo iyadoo oo mataqaanaa la isxumaynin wax la iska dhaadhiciyo marka horta aada iyo aad ayaan ugu tacsiyenaya waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala isaga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee mataqaanaa ama ka horreysay ama isaga waqtigiisii ku geeriyooday dhibaatadii magaalada ka dhacday iyo meelaha kale Allah u wada naxariisto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عبد القادر الشريف علي odayaasha ka mid ah magaalada Birmingham ka socda qowmiyadda Banaadir waxaan idin leeyahay Soomaalida meel kastoo joogto walaalkeen Allah u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun qof kastoo naga mid ah meeshaas isugoosa waxaan kaliya ku darsan lahay hadda qowmiyadda ashraafta ka mid ah waxyaalahan isku haysano ama diiniya ama waxyaalahan meel kasto isku hor yimaadaan walaalaha Soomaalida meel kasto joogo ku baaba'an ma aha Muqdisho kaliya lagu baabao meel kasto adduunka joogto badda lagu baabay xabsiya lagu baabay marka dan ma idin ku jiro in arintaan sii wadno marka 25 sano wax qarniya sii wadna waxa idin leeyahay dhinac dhiga ee ka shaqeeya in oo maslaxada oo Soomaalida meel kasto joogto inay ka qayb galaan sidii wax u qaban lahaayeen Soomaalida ee burburin lahaayeen dhibaatooyinkan soo noqnoqonaya dhammaan jaaliyada ka soo qayb gashay Birmingham hooyooyin siyaasiyiin iyo aqoonyahan kale waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam ka bacdi waxaan maleeyahaa halkani
maanta waxaan u joognaa inaan u duceyno walaalkeen cawil daahir salaad runtii cawil aniga marna dhalinyarada gararkeen iyo daris baan ahayn isku xafad baan ahayn si fiican isku naqaanaa runtii socodiisi iyo wariisi iyo mataqaana wada darsan yahay ilaahay u naxariista asaga iyo mataqaana inta la geeriyo tabar iyo dhalinyarada la geeriyo toba shaqeynaysa iyo kuwa kaleba aniga 22 haddaan idiin sheego 7 subaxnimo waxaan soo maray meesha qaraxa ka dhacay oo mataqaanaa ilaahay sheegay mataqaanaa gurigooyinka ayaan soo maray anigoo markaa ku socdo laboorka inaan ka soo doofo markaa 22 soo baxay aniga markaan soo baxay 7 meelasaan soo maray markaan tegay laboorka bacdi oo ilaa 98 camal aan weli aan duulin baa geerida shirka ay soo gaartay geerida shirka ay soo gaartay labada qaraxyo camal ay soo gaartay والله runtii aad iyo aad mataqaanaa ugu naxay markii ka bacdina aan ka maqlay maalmo ka horna waa isla joogna waan saarnay laba mar aan saarnay marka insha allahu tacaala ilaahay waxaan u rajaa jannada ilaahay firdowsiina ku waraabiyo caasaskii iyo carruurtii oo ka tegana ilaahay samariina ka siiyo asxaabta sidoo kale annaga hawaaye iyo dhammaan dhalinyadii tahay ehelkii qaraabadiisa oo dhan iyo soomaali oo dhan maanta tacsida ugu taallaa nin wanaagsan inuu yahay waxa caddeeyayso meelaha kala duwan ee tacsida looga dhigayo waa iska caddeeyaysa mataqaana ninka inuu wanaagsan yahay oo nin mataqaana ahlujanna u yahay oo nin yani dadka raalli ka noqdaan ilaahna qofkiisa raalli buu ka noqon doonaa oo yani waxaa la fiiriyaa qofka inta duunta raacdo intii mataqaana la tiiraata la fiiriyaa marka ninkan waa iska caddaa mataqaana waa dadku waad aragtaa tacsida meel waa laga dhigayaa marka ilaahay mataqaana ducadaas loo duceeya ilaah baa u qabo anigana gaas ilaah noo qimeeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا برامج كدوغميانا لكن waxaan jeclaan lahaa haddii uu awoodo Sheekh Fuad Bashiir inuu mar kale halkan noo soo istaago barnaamijka noo soo gabagabeeyo noona duceeyo insha Allah jazakallahu khayr. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. waxaan ku soo khatimi lahaa ummadda Soomaaliyeed walaalayaal meesha ay marayso alxamdulillah waxaan leenahay dad ilaahay nimcooyinkuu siiyey ciduu siiyey ay yar tahay meesha ay degaan nimcada taalla dad isku afa isku muuqaala isku dhaqan iyo hiddo ah isku diina isku madhaba marka inuu ilaahay ka saaro wixii tashwiisha iyo khilaafa ummadduna ay walaaltinimada meel kastoo joogtaba ay muujiso dhibkana ay wadaagaan hadduu soo dhaco dhiiladu iyo warka xun nebigu wuxuu ku yidhi xadiis sala allahu calayhi wasalam مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد وحيابها أمد الصومالي عانك كتها وحكمدها أنت دولة الجوكتاي سيقدر يليسو وحقوق قبانا يسو أنت كتها الجوكتي وحكمدها وناك أمد الصومالي الواقرة إن إيضا أنت هالصور بلا دولة هيد حدنا الشعب كيدي خورمارك ودنك وناك يكون هستان يددال كودا كيس كافر كورنا أي كات الماميهين هدي أي مركة هل لهايين أمني ينبت قليو يعدالد iyo hoggaan fiican ilaahay baan u baryaynaa inuu siiyee maxaad u malan lahaydeen inta dibadda ku balanbalaysa ee qurbaha ku rafaadeena guryahoodiiba ku noqon lahaayeen dhulkuna ka badan dadkuna walaalay wadada wada dhashay xidida ilaahay marka waxaan u baryaa ummadda Soomaaliyeed inuu ka qaado culayskaas uu ugu horeeyo amni darrada iyo dilka xaq darrada ee maalinba kii dhakhtarka ahaa kii aqoon-yahanka ahaa kii sheekh ahaa ay noqotay in masaajidka qofka lagu dili karo ay noqotay jaamacadda ardayda ka garaajood garaynaysa in lagu dilayo waxaas oo maraya marka wax xanuun badan laakiin waxa laga bixi karaa iskaashi iswada kalsooni in la isu muujiyo kalgacal iyo walaaltinimada la muujiyo marka dibadda la joogo sidoo kale intaas oo kale lagu dhaqmo la iska ilaaliyo wax dadka kala qaybiya ama qabiilada ha noqoto ama qolqolaha ha noqoto ama in la iska si gobolada hadda ma aan soo caan baxay magacyada badan leh in la isku kala faquuqo waa inaad ogaataa Soomaali baa tahay meel kasta joogto anigu waxaan ka soo jeedaa Soomaalida galbeed meesha Soomaalida galbeed dhulkaas wadigeena ku jirnay gobaysa maxaa dhulka horta ay marka anoo yar baan iman jiray hargeysa joogaan dhigi jiray mar baan tagi doonaa hargeyso waxaan wadaa madaxweyne joogo siyaad hargeysa joogo waxaan dhigi doonaa askari ciidan Ethioobiyaanku markaan ciyaalka islayno iyo askarta lagu soo diri jireen markii dambana xamar baan ku soo koray oo waxbarashada dugsiga ku dhamaystay nin marka waxaan soo maray qayb badan Soomaali kamid ah waxaan dareemi karaa marka walaalayaal meel kastoo joogtaba qofka Soomaaliga sidoo ugu soo cararayo qofka kale waxaan hadda nin ku dhex jiro ummadii ama sheekhnimo ha noqoto iyo mactaaliintii ama wada dhaqamada ha noqoto marka wax naga fiican ma lahayn ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay noo ziyaadiyo wanaagaas ummadana ay noo ilaaliyo dawladda iyo cidda amaanka iyo gacanta ku haysana
talooyinka aad siiseen ilaahay ha ka dhigo kuwii ku dhaqma ilaahay ha naga joojiyo qaraxan iyo dhibkan ilaahay ummadda barwaaqo iyo nolol wanaagsan ha siiyo ilaahay ummadda diintooda ha u ilaaliyo intayna dowladda joogtana walbahaarka noogu weyn wuxuu naga haystaa carruurtee ilaahay awlaadda ha noo xifdiyo ilaahay guryaha ha nooga dhigo guryo degan oo barakaysan ilaahay ha naga dhigo dad isu jecel ilaahay dadtii wada dhashada ay wada dhasheen maxamed cali nuur Universal TV Birmingham